hay-adaha amniga ayaa sheegay inay soo gabagabeeyeen weerar khasaaro badan geystay oo kooxaha argagixisada ah ay ka fuliyeen baarka Liida Seafood ee magaalada Muqdisho. wariyahayaga Cabdicasiis Maxamuud Guuleed Afrika ayaa warkan faafahinaya. weerarkan oo dhacay xalay intii u dhaxaysay salaadii maqrib iyo salaadii cisho ee waqtiga Muqdisho ayaa waxa uu ka dhacay xeebta Liido gaar ahaan maqaayadda Liida Seafood loo yaqaano ee degmada Cabdicasiis ee gobolka Banaadir. koox Maleeshiya ah oo hubeysan ayaa weerar rasaas ku bilaabay dad fadhiyay bannaanka maqaayadda Liida Seafood kuwaas oo ay qaar ka mid ah halkaasi ku laayeen. dabeetana waxa ay bilaabeen dadkii goobtaasi fadhiyay oo boqolaal kor u dhaafayay inay gudaha maqaayadda ku cararaan. intii aysan gaarin albaabka maqaayadda dhinaca laamiga ku teedsan ee laga baxo maqaayadda ayaa mar kale waxaa ka dhacay bannaanka maqaayadda qarax loo adeegsaday baabuur oo gilgilay maqaayadda iyo goobihii ka agdhowaa. wixii wakhtigaasi ka dambeeyey xaaladdu waxay isku beddeshay mid halkaasi ay ka jirtay rasaas iyo qaraxyo. waxaa isla markiiba goobta u soo gurmaday cutubyo ka tirsan ciidanka NISA iyo ciidamada booliska Soomaaliyeed kuwaas oo isku gadaamay maqaayadaha Liida Seafood iyo Beach View kuwaas oo ku teedsan xeebta Liido. waxay ciidanku bilaabeen inay gudaha u galaan maqaayadda Liida Seafood halkaas oo ay maleeshiyada ka tirsan ugus ku haysteen tiradada. waxay ciidanka NISA bilaabeen inay dadkii halkaasi ay ku haysteen maleeshiyaadkaasi ka tirsan ugus inay ka soo badbaadiyaan. ilaa iyo boqolaal dada ayaa goobtaasi laga soo saaray kuwaas oo bad qaba. dadka goobta laga soo bixiyey waxaa ka mid a xeer ilaaliye ku-xigeenka qaranka Dr. Maxamed Xasan Nuur oo ka mid ahaa dadkii xalay ku shaaxaynayay maqaayaddaasi Liida Seafood. Dr. Maxamed Xasan Nuur oo markii ay ciidanku ka soo samata bixiyeen gudaha maqaayadda kula hadlay bannaanka maqaayadda telefishinka qaranka ayaa ka warramaya wixii uu arkay. ilaahay mahadiis waxaan ku jiray dadka meesha ka soo badbaaday nimankii cadowga ahay oo argagixisada ahay waa dad masaakiina oo shaqooyinkooda ka nasanayo oo u diyaar garoobay habeenka jimcaha inay nastaan caruurtooda la qaxweeyaan waalidiintooda la qaxweeyaan ay si naxariis darro ah intuu yimaadeen xabada ku bilaabeen. laakiin waxaa ilaahay mahadiis ah ciidamada gaarka ah ee NISA ayaa inta badan dadkii ka soo badbaadiyay goobihii dhibka uu ka dhacay. anigu waxaan ka mid ahay dadka la soo badbaadiyay waxaana si dhaqsi ah nooga soo gaaray oo derbiga nagu soo jabiyay ciidamo gaar ah. dadkii dhaawac ahayna qof ay u soo bixiyeen kuweena caafimaadka qabayna kadib wayna soo bixiyeen waa ilaahay mahadiis. laakiin waxa waaye nimankaasi waa niman cadow ah waa niman ay dhibayso nolosha bini'aadanka. waa wadada kaliya oo furan ee nimankaas la iskaga qaban karana waxay tahay in lala dagaalamo. wax aan dagaal ahayn oo ay wax ku leeyihiin ma jirto. inta dhimatay Allah u naxariisto inta badbaadayna waxaan rajeynayaa inay qaado doonaan go'aano. qaarkeen hore ayay go'aan u qabeenba oo way ogaayeen dadkaan anigu ka mid ka ahay way ogaayeen argagixisadu inaanan looga badbaadeenin in meel la fadhiisto inaanan looga badbaadin in shaqada qaranka la daayo argagixisada. waxa kaliya oo argagixisada looga badbaadi karo waxay tahay waxa hadda ciidanku ay sameynayaan oo ah inay naftooda huraan oo ay dilaan qof walba. marka waa shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa inay xaaladaasi ay roon tahay ciidanku si dhaqsi ah inay dadku ku soo baxsheen. waa mahadsan yahay dadka goobta laga soo badbaadiyey waxaa ku jira carruur yar oo ay waalidkood halkaasi ku dileen maleeshiyadii weerarka soo qaaday kuwaas oo iminka ay gacanta ku hayso dowladda Soomaaliya. waxaa sidoo kale goobtaasi laga soo bixiyey dad tiradoodu ay gaarayso in ku dhow 100 qofood kuwaas oo goobtaasi u soo damaashaad tegay. waxaa sidoo kale goobta iyana laga soo saaray dad dhaawacyo fudud qaba iyo kuwa dhaawacyo culus qaba kuwaas oo markiiba ay ciidanku bilaabeen inay siiyaan gargaar degdeg oo caafimaad. dabeetana waxaa loo gudbiyey goobaha caafimaadka ee magaalada Muqdisho. intii aan ku dhex jirnay gudaha maqaayadda Liida Seafood waxaan halkaasi ku aragnay meydad dad rayida oo daadsan gudaha maqaayadda. meydadkii halkaasi aan ku arkay waxaa ka mid ahaa hooyo iyo cunugeeda oo saqiir ah oo halkaasi ay isku duldileen maleeshiyadii weerarka soo qaaday. dadka goobta ku dhintay badankood waxay ahaayeen dad shacaba oo ka kala yimid degmooyinka gobolka Banaadir kuwaas oo u yimid halkaasi inay ku shaaxeeyaan. goobta ay wax ka dhaceen waxaa markiiba soo gaaray taliyaha NISA Generaal Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryare iyo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya Generaal Maxamed Sheekh
kuwaas oo iyagu soo indhaindheeyey sida ay wax u dhaceen. dabeetana waxaa isna goobta yimid wasiirka amniga ee xukuumadda Soomaaliya Cabdirasaaq oo isaguna markii uu soo kormeeray xaaladda kadib warbaahinta warbixin ka siiyey wixii dhacay. waxaana uu wasiirku sheegay in ilaa iyo 20 qof ay goobta ku dileen maleeshiyada ugus. waxaa sidoo kale uu wasiirku sheegay in tiro maleeshiyaad ah oo uu ku qiyaasay ilaa iyo 6 kuwaas oo ahaa kuwii weerarka soo qaaday inay goobta ku dhinteen iyaguna. hal saac ka hor la soo afjaray maxaa la yiraahdaa howlgalkii ay wadeen ciidamada amniga hotelkan ama maqaayadan Lido Beach oo ay maqribkii caawa weerarka ku soo qaadeen ciidamada ugus ee nabadiidka ah halkaasoo ay dhibaato weyn isugu dayeen. dabcan waxay rabeen inay dhibaato xoog weyn leh ay u geystaan shacabka Soomaaliyeed. maqaayadan u yimid inay ka cunteeyaan oo caruurtooda watay oo faamiliye ahaa isla wada socday in dhib loogu geysto iyo shacab Soomaaliyeed. nasiib wanaag sidii ay rabeen uma aysan suurtagelin ciidamada amniga Soomaaliyeed. runtii hawl fiican bay qabteen baan leeyahay waana ku amaanayaa runtii mar walbana waa ku amaanaa. يعني waqtiga ha dheeraada caawa waqtigan waxa dheereeyay wax kale ma aha waxay ahayd in la badbaadiyo shacabka Soomaaliyeed iyo xaaladda iyo qaabka ay u dhisan tahay maqaayadda oo runtii ahayd si adag meel aan aysan sahlanayn in si fudud dadka looga saaro. alxamdulillah laakiin dhimashadiina iyo dhaawacii iyo dhibkii ay wadeen dhibaataday wadeen dhibaato ka yar ayaa runtii ayaan halkan ugu imaanay. wasiirka amniga ee xukuumadda Soomaaliya waxa uu dhinaca kale sheegay inay gacanta ku hayaan shaqsigii soo abaabulay weerarka lagu soo qaaday maqaayadan Lido Seafood iyo hoteelo ka horeeyay oo ku yaala magaalada Muqdisho. waxay halkan u yimideen wax kale ma aha dad shacab Soomaaliyeed oo caawa halkan ku casheynay oo u yimid inay caruurtooda iyo xaasaskooda inay halkan ay kula casheeyaan in lagu baabi'iyo hadda meel ay diinta islaamka iyo dhaqanka Soomaaliyeed ay kaga jirto annaga ma garanayno. marka shacabka Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaad u sheegaynaa dadka arrimahan ku lugta leh mar walba inay xogtooda ay soo gudbiyaan si wax looga qabto si loo badbaadiyo shacabka Soomaaliyeed si ayaga naftooda loo badbaadiyo ayaga dadkaas naftooda sympathy u haayo weli waxa muuqata in dad sympathy u haayaan dadka noocaas oo kaleeta. waxa kaleeto rabaa dadkii weerarkan soo qaadayna oo ahaa 6 ilaa 8 in meeshaas ayagana lagu dilay. waxa ayadana nasiib wanaaga in ninkii abaabulkan soo waxay maskaxdan u ahaa horeyna u soo abaabulay falkii ka dhacay hotel Maka al-Mukarrama iyo falkii ka dhacay hotelka Central labadaba ninkii soo abaabulay ayaa kana soo abaabulay. ninkaasna in gacanta lagu haayo asagoo nool in la haayo ayaan rabaa. wuxuuna u qaabilsanaa madaxa qarxinta hoteelada u qaabilsanaa kooxda ugus. ninkaasna waa la haayaa koleyta wixii ka soo baxa iyo baaritaan iyo ayadana koleyta dib ayaan kasoo sheegi doonaa hadduu Ilaahay raalli ka noqdo. weerarkan ayaa noqonaya kii ugu ballaarnaa ee goob ay dad rayida ku sugan yihiin ay ku soo qaadaan maleeshiyada kooxda ugus. waxaana weerarkani uu ku soo beegmay maalmo ay dadku u damaashaad tagaan xeebta Lido iyadoo caadiyan maalmaha Khamiista iyo Jimcaha ay yihiin maalmo ay mashquul badan ka jirto xeebta Lido ee magaalada Muqdisho. Cabdicasiis Afrika SNTV Muqdisho.